soo dhawow janaalkeena isboortiska fadlan si aad u hesho macluumaadkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha subscribe noo saar janaalkeena gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya oo daawada muuqaaladeena maxaa ka cusub ciyaaraha iyo caawa kulamada la dheeli doona faahfaahin fara badan oo idin soo gudbin doona sida ay u muuqanaysaa shaxda Barcelona kulanka Inter Milan ay ku soo dhaweynayso garoonka Camp Nou habeen dambe Champions League tababaraha Inter Milan Antonio Conte oo doonaya in uu la soo wareego laacib ka tirsan kooxda Man United oo ugu ciyaara qadka dhexe waa sidii xaaladda dhaawac ee Lurisane goroomadana miyuu ka maqnaan doonaa waxyaaba fara badan oo kubadda cagta kooxda Barcelona oo bisha Janaayo doonayso ama in ay ku qaadato mid kamid ah xidigaha sarsare ee Arsenal Diego Forlan oo ugu digay Barcelona Suarez in ay halistiisa kaga imaan karta Inter Milan tababaraha Man United Solskjaer oo sheegay hal arin ay Man United u baahan tahay in ay sameyso liiska musharaxiinta lala xiriirinaya shaqada tababarka AC Milan si ay u noqdaan bedelka Marco Gambiarbo Solskjaer oo kalsooni ka muujiyay in ay yahay shakhsiga ugu habboon in uu tababaro u noqdo kooxda Man United Guardiola ayaa si xoogan ugu amaanay xiddig ka tirsan kooxda Man City hordhaca kulanka Man United iyo Arsenal wax waliba aad ugu baahan tahay kulanka Premier League aadka loo wada sugayo caawa saacada marka ay ku beegan tahay 4 saac oo gow ah ku soo dhawow janaalkeena isboortiska fadlan subscribe saaro si aad waxyaabo fara badan oo ciyaaraha oo macluumaad nooga hesho gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya oo daawada muuqaaladeena hordhaca kulanka aadka loo wada sugaya ee Man United vs Arsenal aan ku hormarnay waxaad ugu baahan tahay kulankaas warbixino fara badan oo aan kaaga hayo gudagal barnaamijka kooxda kubadda cagta Man United ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Arsenal caawa kulan ka tirsan horyaalka Ingiriiska ee Premier League wiilasha kooxda Arsenal ayaa doonaya in ay dhibcaha kaga soo qaataan Man United garoonkeeda Old Trafford oo aysan ku soo adkaan tan iyo sanadkii 2006 ogeysiiska ciyaarta tartanku waa England Premier League taariikhdu waa Isniin 3 September 2019 saacada ay ciyaarta bilaabanaysa waa 4 habeenimo xilliga geeska Afrika garsooraha ciyaarta waa Kevin Friend wuxuu u dhashay dalka England garoonku waa Old Trafford kooxda Manchester United waxay u badan tahay in ay dhaawacyo ku weynayso labada weeraryahan ee Antonio Martial iyo Marcus Rashford sidaas darteed Mason Greenwood oo 17 jir ah ayaa ku soo bilaaban doona markiisii ugu horeysay kulanka horyaalka ah ee xilli ciyaareedkan laacibka khadka dhexe kaga dheela kooxda Man United ee Paul Pogba ayaa shaki la gelinaya maxaa yeelay waxa uu dhaawac ka qabaa dhanka hanqowga ah isagoo hanqowgu bararay kadib markii ay jug ka soo gaartay kulankii uu ka hortagay naadiga Red Bull laakiin Lucas Shaw ayaa dib ugu soo laabtay tababarka naadiga Man United weeraryahanka kooxda kubadda cagta Arsenal Alexander Lacazette ayaa kulankan seegayo isagoo ilaa iyo bishan soo aadan la maqnaan doona dhaawac hanqowga ah fadlan ku soo dhawow janaalkeena isboortiska fadlan si aad u hesho macluumaadkii ugu dambeeyay ee isboortiska ama ciyaaraha subscribe noo saar janaalkeena walaal gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya oo daawada muuqaaladeena cusub